waxaan idin leeyahay waxaa jiray xildhibaan aflagaadeeyay xildhibaan kale madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu u dhaxeeyaa ummadda oo dhan shakhsi ma xukumo Soomaali oo dhan u xukuma waana la dhaliili karaa dhaliil wax kastana way ka imaan kartaa qofka hadduu dhaliilo in qof kale uu jawaabo uu dhaw macnaha qabiil ahaan in asagu wax ku jawaabo sax ma aha waxaan leenahay beesha Mudulood gaar ahaan Abgaal xadgudubka ay xadgudbeen waa in ay ka bixiyaan raali gelin hadday raali gelin ka bixin waayaan waxa dhaca hool Abgaal u taalo waay waxaan idin leeyahay kale gardheere Soomaaliya waxaan leeyahay in la isku xirnaado la isku duubnaado aan la kala quwanin waxyaalaha meesha maanta waxa Soomaaliya ka socdo wax loo jeedo waay gardheere Soomaalina waa beel mugween Soomaaliya meelay ka digin malay la koonfurta waxaan u maleynaa hadaa tagtid Suudaan ninka looda ku raaca ama ari ku raaca garjin laga helay ama gardheere Soomaaliya laga helay xildhibaan xaadoole garjin hadaadan ka seenin buug iyo qalin iyo kan ana ku baray waxay tahay noo darki doontaa marka waxaan leeyahay beesha Mudulood ama gaar ahaan Abgaal raali gelin laga bixiyo hadii raali gelin laga bixin waayo waxa ka dhaca Abgaal ay aabaleen tan kala waxay tahay xildhibaanka waa loo hanjabaaday hanjabaada meesha ka dhacday hanjabaada hadii xildhibaankaas caawo dherig hadduu u dhinto in ay macnaha ay marka la yiraahdo xaadoole iyo dadkiisa inaan u haysano caawo hadduu dherig u dhinto xildhibaanka ma ahano ninkaas nin laangaab ma ahan wuu ka laandheerasan yahay xaadoole waxaan leenahay iyo Abgaal iyo maraaqyadii oo nimanka la yiraahdo beesha Mudulood maraaqyadooda ugaasiyadooda nabadoonadooda arrintan waa in raali gelin degdeg ay ka bixiyaan hatta raali gelin laga bixina ma waa tu degdeg haday arrintaas ka jawaabi waayaan ayaga u taala waxaan idin leeyahay meesha waan ku sii fogaanay insha Allah ilaahay idinkiis kulli waxaan u maleyn doonaa in shirkan kan kali uusan ahaan doonino shir gardheere Soomaaliya la qaban doono wax kastaba dhib iyo dheef